بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ووحير إلى دعوة كليب كان باشرنا وشرفنا بزيارة غرة العين. 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 يا رسول الله ظهري أوجع فاشفي واشفي أهليني. يا رسول الله عافي عيالي وأهلي والمحبين. يا رسول الله قم لي وهدي فؤادي واقض دينين. يا رسول الله يسر كل مطالبنا بيسرين. أو جواب قال له اسكو صباح اسكو موقته. يا رسول الله كن عونا لي واكرمنا برفقين. يا رسول الله لذنا بك فارحمنا برفقين. يا رسول الله ما لي غيرك حسن من حسودين. وأوحي إلهي لو يدي الله سبحانه وتعالى أنت أني إنك ربي كجيران وعاد وقت واي سوكو بكرمه وحير هذا رسولك إلهي يو ظهري أوجع نبرك أي حنون صناي نبرك أي حنون هي نبرك أي حنون هي فشفي وشفي أهلين يا عافي أهل يا عافي يا عاف ما هي إلهي سبحانه وتعالى. وعيدا يا رسول الله عافي عيالي وأهلي والمحبين. رسولك إلهي عيالك عافي أهلك عافي أنت جعلنا عافي أنت جعلنا عافي بيننا. وعيدين يا رسول الله قم لي وادي فؤادي واقضي دينين. رسولك إلهي استاج وقلبك هنوني ودينت يقود ودينت يقود. وعيدين يا رسول الله يسر كل مطالبنا بيسرين. رسولك إلهي noo fududay waxaan ka dalbeeno ka codsanayno ka baryayno iyo labada fududood adduunyo aakhira Allah nabiga noo fududay meeshii la oran jiray ilaahu noo fududay rabbana aatina fid dunya hasana wa fil aakhirati zufi ma yaqaanan buugan uga jirto mana aakhir hayaan musiiba Allah ku rido. waxaan filayaa waa soo daawateen kilibkan. wuxuu ka kooban yahay qasiido uu akhrinayo sheekheena Sheekh Cabdikariin xafidahullah ilaahay ha xifdiye. miraha inteeda kalena waxaan raaciyay ninkii khawaarijka ahaa oo qasiidadan radinayay. qaybtan waa qaybtii afraad ee aan ku radinayo ninkan khawaarijka ah ee fahan darrada ay hayso, aqoon darro la liita iyo waliba aflagaado iyo akhlaaq xumo intaba meesha la jooga. waxaan rabaa marka inaan u sheego innamaa shifaa'ul ayyi as-su'aal. jahliga iyo aqoon darrada yacni caafimaadkeeda iyo daawadeedu waxa weeye qofka inuu dhaho waxaan garan maaye bal ii sheega. laakiin qofku wuxuusan ogeyn inuu aflagaado iyo ba'yi hoog la yimaado meesha kuma jirto. haddaba ninkaas in allaale inta uu qasiidada ka sheegay oo uu ku tilmaamay inay shirki tahay, wax shirki ah meesha ma yaalaan. qasiidadaas sida ay u tahay bayna sax ku tahay. waa qasaa'idda midda ugu macaan oo aan aniguba jeclahayba bay ka mid tahay. haddaba in nebiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh caafimaadka nebi maxamed lagu helo sabab uu u noqdo, in awlaad nebi maxamed sabab u noqdo lagu helo, dhibaatooyin jira ama brobleemo jira ama dayn qoorta kugu jirta in dayntaas lagaa guudo oo nebi maxamed sabab u noqda, waxaasoo dhan waa shay bannaan shareecada islaamka, waana wax iska waadixa asaga un baan ogeyn maahane. marka waxaan rabaa intaan taa aan ka jawaabin ayaan waxaan rabaa jawaabtu waxay noqonayso inaan u sheego. jawaabta saddex jaanibba waan ka keeni insha allah. jaanib maadi ah waa ka keeni, jaanib caqliyana waa ka keeni, jaanib diini oo sharciyana waa ka keeni. saddexdaas qayb baan ka keenayaa. haddii dhanka maadiga aan u hormaro, waa aragtay qof kasta oo maanta xanuunsan ama xanuun ku dhacay noocu raba ha ahaadee waxa uu ordaa dhakhtarka. ninkaan hadda hadalka uu lahaa wuxuu weeye ilaahay maahan cid kale wax caafisan ma leh buu lahaa. hadalkiisu marka wuxuu noqonayaa hadal iska hor imaanaya. qofka marka uu jiran yahay dhakhtarka uu aadahayo muxuu dhakhtarka doonayaa? waa su'aal isweydiin u badan. qofkan wuu jiran yahay, khaaliqii abuurtay waa joogaa, mana dhiman mana dheeraan, muxuu isbitaalka qofka doonayaa? su'aashaas jawaabteeda way caddahay oo wuxuu ka doonayaa caafimaad buu raadinayaa. cudurka intuu raba ha la ekaado, mid yar iyo mid saqiran iyo mid culus midku raba ha ahaado. haddaba ninkan hadalkiisa markii la fiiriyo iyo dhakhtarka la aadahayo markii la fiiriyo in allaale inta dhakhtarka aada oo caafimaad dhakhtarka u aada waa niman mushrikiin ahoo ilaahay keyrkiis wax la wadaajiyey bay noqonaysaa markii la fiiriyo ninkan hadalkiisa. haddii uu ogolaado u dhaho maya dhakhtarka caafimaad waa loo aadi karaa, caafimaad waa loo aadi karaa, dhakhtar gaala baa caafimaad ka doonan kartaa, khayru khalqillaahi oo nebiyullaahi maxamed ah oo wuxuu raba ilaahay u yeelaayana caafimaad looma aadi karo. hadalkaa laftigiisa
ayaa iimaan la'aan ahba taa haddii aan halkaa uga soo gudubno daawada lagu siiyo qandhaa madax kaa haysa dhakhtarba maada aadin kaniini baad rabtaa inaad liqdid waxaad heli kartaa inaad ducaysatid waxaad heli kartaa kaniiniga inaadan cunin baad heli kartaa laakiin waxaa go'aansatay inaad kaniiniga cuntid si qandhadii ku haysa ee kaaga kacdo haddaba su'aasha meesha taalla waxaa waaye kaniiniga aad cuntay ee qandhada kaa kiciyey ma asaga ayaa daatadiisa caafimaadka keenay mise caafimaadka ilaahay baa keenay jawaabtu waxay noqonaysaa qofka iimaanka leh oo aan khawaarijka ahayn daawadu wax ma daawayso cidda wax daawayso waa ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin daawadu maxay noqotay sabab bay u noqotay inaad caafimaadkaa heshid sabab baa ilaahay ka dhigay aanba ku sii daree dadkan 24 saac u socda indiya meel walba aadahaya owlaadda raadinaya yaa bixiya owlaadda ilaahay baa bixiya haddaba hindiya ma owlaad bay bixisaa ama istaalada hindiya ma owlaad bay bixiyaan jawaabtu waa maya cidda bixisa yaa waaye ilaahay laakiin dadku maxay raadinayaan waxay raadinayaan sabab ay ku heli karaan inay owlaad helaan marka haddaba dadku ma ahan dad mushrikiin ah markuu qofkii shay sabab ah uu wax ka doono waa wax iska caadi ah haddaan intaas maadigii iyo caqligiiba uga soo gudubno waxaa soo gashaa dhinaca diiniga ah marka soo gal nebiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh ilaahay waxa uu ku dhaafaa dunuubta baa lagu tirtiraa nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh magacyada nebi maxamed maxaa ka mid ah analmaaxi aniga maaxi baan ahay midka wax tirtiraan ah dunuubta tirtiraan ah wuu fasiray oo wuxuu yidhaha aniga waxaan ahay midka ilaahay aniga sababtayda gaalnimada uu ku tirtirahay dembi la galo gaalnimo ka weyn ma jiro midka sababta u ah in gaalnimada lagu tirtiro dunuubteeda oo dhan nebi maxamed baa sabab u ah salawaatullaahi wasalaamu calayh horta nebi maxamed jaamac iyo yuusuf kula noqone waa qofkii ilaahay uu doortay subxaanahu wa tacaala uu doortay wey wahaabi iimaan ma lahan asaga wuu isku dharirinhayaa nebi maxamed buu isku dharirinhayaa laakiin salawaatullaahi wasalaamu calayh sida aad moodaysaan munaafiqiintan khawaarijta ah ma ahan caamadu markaa ha fahanto nimankaanu nebi maxamed martabada ilaahay siiyey bay quuri la'yihiin oo diidan yihiin haddaba waxaan kuu keenayaa oo aan ku hordhigahayaa wax saxan oo shareecada ah saxaabigii la odhan jiray ubay ibnu kacab ayaa rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu ku yidhaahday yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow innii uksiru salaata calayka rasuulka ilaahayow salliga aan kugu sallinhayo waan badiyaa buu yidhi fakam ajcalu laka min salaati salligayga intee baan ka dhigaa buu yidhi rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh buu weydiiyey saxaabiga jaliilka ah rasuulku wuxuu ugu jawaabay maashiita intaad doontid ka dhig buu yidhi saxaabigu wuxuu yidhaahdaa arrubuc ka waran wakhtigayga 4 meelood haddaan inta u qaybiyo meel aan kugu salliyo ka waran rasuulku wuxuu ugu jawaabay maashiit wa in zidta fa huwa khayrun lak intaa rabtid ka dhig laakiin haddii aad ziyaadisid ayaa kaaga khayr badan haddaba wuxuu yidhi saxaabigii annisdaan wakhtigayga kala bar aan ka dhiga salligaaga ka war rasuulku wuxuu ugu jawaabay maashiit fa in zidta fa huwa khayrun lak waxaa rabtaad ka dhigi kartaa laakiin haddaa ka sii badisaad kaaga khayr badan buu yidhi rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh haddaba wuxuu yidhaahday ajcalu laka salaatii kullaha haddaba wakhtigayga oo dhan salligaaga ayaan ka dhigahayaa buu yidhi rasuulka ilaahayo salawaatullaahi wasalaamu calayh rasuulka markuu ninkaas intaa yidhi saxaabiga ah wakhtigayga oo dhan salliga xabiibka ayaan daldalahayaa muxuu rasuulku ugu jawaabay wuxuu ugu jawaabay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh idan tukfaa hammuk wa yuqfaru dembuk hammigaaga iyo murugtaada oo dhan ayaa lagaa kaafinayaa kulligeed murugtaada oo dhan dunuubtaadana waa lagu dhaafayaa waxa intaa lagu dhaafay maxay noqotay salliga xabiibka salawaatullaahi wasalaamu calayh oo aad badisay ayaa waxaa lagu dhaafay dunuubtaadii oo waxaa lagaaga kaafiyey murugtaada maxaa ka mid a marka waad jirantahay caafimaad baad u baahan tahay waa lagugu caafin waxa weeye aakhira inaad badbaaddaa rabtaa waa lagugu badbaadin axbaabtaada in yacni ilaahay caafiyaad rabtaa waa lagugu caafin dayn baa ku haysata soo maaha dayntaa lagaaga qaadi kurbo kasta oo ku haysa oo waxaa lagaaga kaafiyey salliga xabiibka salawaatullaahi wasalaamu calayh maxaa sabab u noqday salliga xabiibka salawaatullaahi wasalaamu calayh haddaba qofkii wixii asaga uu rabay in ilaahay uu kaga caafiyo in uu sheegto waxay noqonaysaa shay saxa maxaa yeelay salliga aad sallinaysid acmaasha aad samaynaysid waxoo dhan waxaa loo bandhigayaa nebiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu yidhahdaa xayaatii khayrun lakum noloshayda khayr bay idiin tahay tuxdathuuna wa yuxdathu lakum waxbaad soo derinaysaan waa laidiin soo derinaya adinka xugum rabbaaniyaha imaanaya markii aad wax cusub ama aad la timaadaan wa mamaatii khayrun lakum geerideedana khayr bay idiin tahay
تعرض علي أعمالكم أعماشي إني بالإيسان بديها يا أبي رسولك صلوات الله وسلامه عليه وما رأيت من خير وحي خيره أنكو أركو حمدت الله تعالى إلهي بانكم هذنا يا أبي رسولك صلوات الله وسلامه عليه وما رأيت من شر أستغفرت الله لكم وحي شره أنكو أركنا إلهي بان دم الله في إذين ويدينها يا أبي رسولك صلوات الله وسلامه عليه هذا برسولكم ما أهن مد إسكت انتي أو إبره ما أهن وأحد لو قد بينها يا أعماشا dadka mu'miniinta saalixiinta waa loo gudbinayaa salliga iyo salawaadka rasuulka aad ku salinayso waa loo gudbinayaa haddii aad nabiga salaanta wuu kaa radinayaa salawaatullaahi wasalaamu calayh nabigu waa axadka aad marka salaada aad ku jirtid qof kasta oo caalamkan ku jooga inta milyan oo muslimiinta ah mad walba wuxuu leeyahay assalaamu calayka yaa rasuulallah nabi maxamed oo nabadgelyo korkaaga ha ahaato asagoo la hadlaaya nabiyullaahi maxamed buu la hadlaaya marka dadkan caashiqiinta ah haddii wixii ay jeclaayeen acmaasha nebi maxamed loo bandhigahayo salliga nebiyullaahi maxamed lagu sallinahayana lagu helahayo waxaas oo dembi dhaafa lagu helahayo caafimaadka lagu helahayo awlaadda lagu helahayo dunuubtoo la tirtiro lagu helahayo waxyaalaha laga cabsida qabo oo dhinac walba ah ilaahay qofka inuu uga faydayo kurba adduun mid aakhiro daynta waxaasoo dhan haddii lagu dhaafahayo in marka qofku uu nabiyullaahi maxamed waxa uu doonahayo uu hawada u mariyo waxa qaadahayo waa malaa'ig salliga markaad adigu sallinaysid malaa'igtaa gudbinayso ilaahay subxaanahu wa tacaala baa maqla ilaahay baa ballan qaaday oo nabiyullaahi maxamed baa noo sheegahaya in uu maaragtaa loo soo gudbinahayo acmaashoo dhan haddaba nebi maxamed inuu qofka dhaho dhibkaas iyo kurbadaasa ay haysata in la iga faydaan rabaa sax wey maxaa yeele salligiisii baaba lagu faydahaya haddana hadday biciid kula noqotay nebiyullaahi maxamed jannada asaga ma bixiyee ilaahay baa bixiya nebi maxamed sabab weeye jannada nebiyullaahi maxamed asaga ballan qaaday wuxuu yidhaahday man yadmanu lii maa bayna lixyayhi wamaa bayna rijlayh admanu lahu ljanna nebi maxamed soo maaha midka yidhi qofkii labadiisa lafgarood waxa ku dhex jiro carabkiisaa xifdiya labadiisa lugood dhexdooda cawrada ku jirtana xifdiya anigaa janna u ballan qaaday buu nabiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh wahaabigaana nebi maxamed inuu wax bixin karo ama wax ballan qaadi karo lamaba ahanba sababtoo tahay diintii oo dhan baan laga warqabin diintii baysan aqoon u lahayn nebi maxamed xaasidnimadiisa ay necab yihiin baa ka buuxda nacaybkay nebi maxamed u qaban bay rabaan bulshada inay ku waswaasiyaan marka nimankaan yaysan idin waalin nebi maxamed ciddii salawaatullaahi wasalaamu calayh si daaragti ah hadalka ugu gudbisa ama si indirect oo tawasul ugu gudbisa labadaba waa sax way dambi maaha inta uu qofkan aaminsan yahay nabiyullaahi maxamed inuu nabi yahay in rasuul loo soo diray yahay cid wax bixin karta ama diidi kartana ilaahay ay tahay laakiin wuxuu nabi maxamed u maraaya ay tahay jaaha ilaahay agtiisa uu ku leeyahay iyo qabuulka uu ilaahay agtiisa uu ku leeyahay darteed ay tahay wax u weydiisanayo waa sax way gaalnimo ma ahan shirkinan ma ahan ilaahay qeyrkiisa wax la weydiistana ma ahan imisaad wax isweydiisanaa hebelo waxaan isi maxaad u weydiisanay hebelo waxaan isi ilaahay baa kuu jooga ma ilaahay wax weydiisata subxaanahu wa tacaala asagaaba ku kaafiye maxaa qofku u weydiisanaysaa macnahaad u weydiisanaysa waxa weeye qofkan walaalkaa ah inaad weydiisatid inay kuu bannaan tahay ilaahayna uusan ahayn baad aaminsan tahay hadduu awoodo oo ilaahay kaaga soo qaadayana aad ka helaysid hadduusan awoodin oo ilaahay kaaga soo qaadayna aad ka helayn intaas wey laakiin inuu ilaah yahay wax uma weydiisanaysid fahamka saxda ah waa kaa weeye dadka yaan la qarribin insha allahu tacaala wuu dheeraaday intaasaan kusoo koobayaa aadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu